Arbaca sii baxayso Khamiisina ay soo galayso 26 ayaan wali joognaa 27 bisha nadada jooga November ay 11 sanadka 2025 galabta meel aan ka fogeyn aqalka cad ayaa nin asal ahaan ka soo jeeda wadanka Afghanistan waxa uu si gaadmaha ugu dhaawacay laba askari oo ka tirsanayd ciidamada ilaalada qaranka gaar ahaan National Guard-ka gaar ahaan gobolka West Virginia ka soo jeeday isagana dhaawac ayaa soo gaaray waana la qabtay arintaasi madaxweyne Trump ayaa caawa muuqaal ka soo duubay ku dhawaad 5 daqiiqo ah waxaana uu sheegay ninkaasi ciqaabta ugu adag in la marin doono laakiin muuqaalkiisa mar kale waxa uu kabaha la dulmaray Soomaalida Minnesota ee kuwa sharci darrada wadanka ku jooga guud ahaan wadanka oo caalamka wadamo kala duwan ka yimid isagoo wadanka Soomaaliyana mar kale aflagaadeeyay madaxweyne Trump waxaana uu sheegay in qof kasta oo wadanka sharci darro ku soo galay hadda dib u eegis lagu sameynayo isla markaana la masaafurinayo arrintan qatar intee la eg ayay ku tahay dadka wadanka sharci darrada ku soo galay ayaan idin la wadaagaya balse marka hore soo dhawaada galabta meel 800 oo tallaabo u jirta aqalka cad ee Mareykanka ayaa nin asal ahaan ka soo jeeda wadanka Afghanistan oo magaciisa la yiraahdo Raxmatullaahi Lakanwan oo 29 jir ah waxa uu si gaadmaha ugu dhaawacay laba askari oo ka tirsan ciidamada ilaalada qaranka oo ka soo jeeda gobolka West Virginia dhaawac halis ayaa soo gaaray marxi ayaa xitaa gudoomiyaha gobolka West Virginia Patrick Morsi waxa uu yiri waa ay dhinteen laakiin laba isbitaal oo kala duwan ayaa loo qaaday waxaana gargaar degdeg ah u fidiyay ciidamada Secret Service-ka ee ilaaliya madaxtooyada xitaa aqalka cad lockdown ayaa la geliyay iyadoo waliba xilli holiday ah lagu jiro oo maalinta beriyaha Thanksgiving ay tahay madaxweynuhu inuu joogay iyo in kale lama sheegin sidaas darteed ayaa isla markiiba ninkii la qabtay oo waliba dhaawac oo xabad lagu dhuftay isagana isbitaal ayaa lagu daweynayaa dhaawaciisu sida uu yahay lama shaacinin waxaana ciidamadu ay sheegeen in goobtii laga helay bustoolad loo maleynayo tii ay tahay in askartaasi uu ku dhaawacay labada askari magacooda lama shaacinin sidaas darteed ayaa isla markiiba goobta waxa soo gaaray ciidamada FBI-da kuwa ATF-ka maayarka magaalada caasimadda ee Washington DC Mariel Bowser shir jaraa'id ayaa waxa qabtay taliyaha FBI-da Kash Patel waxaana uu yiri halkan fal argagixiso ahaan ayaan u baari doonaa iyadoo ammaankana si weyn loo adkeeyay caasimadda DC bishii Agosto waxaan egeyn madaxweyne Trump in 2300 oo ciidamada ilaalada qaranka uu keenay caasimadda DC si waxa uu sheegay dambiga baahay ee ka jira magaalada caasimadda loo ciribtiro 30 maalmood markii ay joogeenna waa uu ka qaaday waxaana uu ugu magac daray howlgalkaasi DC Safe and Beautiful Task Force waxaana uu sheegay in caasimadda DC ammaankii iyo kala dambeyntii ay ku soo celiyeen haddaba arrintaasi markii ay dhacday kadib madaxweyne Trump caawa waxa uu soo duubay oo bartiisa Truth Social uu soo geliyay muuqaal ku dhawaad 5 daqiiqo ah muuqaalkaasi dadka guud ahaan wadanka sharci darrada ku soo galay gaar ahaan Soomaalida ayuu si gaar ah u carabaabay isla markaana waxa uu sidoo kale mar kale aflagaadeeyay wadankeena Soomaaliya madaxweyne Trump oo markii hore ka hadlayay dhibaatada ninkaasi asal ahaan ka soo jeeda Afghanistan uu geystay ayaa waxa uu sheegay in nin ka soo jeeda yiri Afghanistan waxa uu si gaadma ah u dhaawacay laba askari oo ka tirsan ciidamada ilaalada qaranka kuwaasi oo qayb ka ahaa ciidamadii amniga iyo kala dambeynta ee caasimadda sugayay ficilkaasi waxa uu ahaa ficil oo u muuqday inuu yahay mid shaydaannimo ah nacayb ku salaysan argagaxna uu ku salaysan yahay waxaana uu sheegay in arrintaasi ay qatar ku ahayd guud ahaanba wadankeena iyo waliba bini'aadanimada waxaana uu sheegay in hadda labadaasi askari oo ka tirsanaa ciidamada ilaalada qaranka ee gobolka Virginia aan u wada duceynayno waxa uu yiri ka madaxweyne ahaan waxa iga go'an inaan xaqiijiyo in xayawaankaasi la marsiiyo ciqaabta ugu adag oo uu mudan yahay waxaan idin sheegay caawa aan idin sheegi karaa ayuu yiri anigoo helaya warbixinada rasmiga ah ee wasaaradda amniga gudaha ay siinayso in qofkaasi gacanta lagu hayo isla markaana uu yahay qof ajnabi ah oo wadanka Afghanistan ka yimid wadankana ku soo galay xilligii Mareykanku uu ka soo baxayay Afghanistan waxa jirtay in
dadkii afgaaniyiinta ahaa ee ciidamada Mareykanka la shaqaynayay maamulkii madaxweyne Joe Biden uu soo daabulay. Howlgalkaasi waxaa loogu magac daray alias welcome. marka dadkaasi ayuu ka mid ahaa. Trumpna waxa uu sheegay in bishii September ee sanadkii 2021 uu soo galay maamulkii Bidenna sharci uu saxiixay uu ku soo galay. qofna ma uusan ogeyn ayuu yiri dadkan waxa ay yihiin iyo sidoo kalena wadankeena ay ku soo qulqulayaan, qofna waxba ma uusan ka ogeyn. sharcigaasi oo maamulkii hore madaxweyne Joe Biden oo madaxweyne masiibo ah isla markaana madaxweynihii ugu xumaa ee wadankeena soo mara ahaa inuu u ogolaaday dadkaasi inay wadankeena soo galaan. waxaana uu sidoo kale sheegay weerarkan waxa uu hoosta ka xariiqayaa khatarta weyn ee ammaanka qaranka ee aan wajahayno. madaxweynaha oo arrimahaasi ka hadlayay waxa uu yiri Earlier today, on the eve of the Thanksgiving holiday, 2 members of the National Guard serving in Washington, D.C. were shot at point-blank range in a monstrous ambush-style attack just steps away from the White House. They had been deputized as part of the most successful public safety and national security mission in the history of our nation's capital, the D.C. Safe and Beautiful Task Force, which has achieved an unprecedented reduction in violent crime and crimes of all type. This heinous assault was an act of evil, an act of hatred, and an act of terror. It was a crime against our entire nation. It was a crime against humanity. The hearts of all Americans tonight are with those 2 members of the West Virginia National Guard and their families. The love of our entire country is pouring out for them, and we are lifting them up in our prayers. As we are filled with anguish and grief for those who were shot, we're also filled with righteous anger and ferocious resolve. As President of the United States, I am determined to ensure that the animal who perpetrated this atrocity pays the steepest possible price. I can report tonight that based on the best available information, the Department of Homeland Security is confident that the suspect in custody is a foreigner who entered our country from Afghanistan, a hellhole on earth. He was flown in by the Biden administration in September 2021 on those infamous flights that everybody was talking about. Nobody knew who was coming in. Nobody knew anything about it. His status was extended under legislation signed by President Biden, a disastrous president, the worst in the history of our country. This attack underscores the single greatest national security threat facing our nation. madaxweyne Trump muuqaalkan aan idila wadaagi doono waxa uu uga hadlayaa dadka uu ku sheegay 21 milyan ee maamulkii Biden uu u ogolaaday Mareykanka inay sharci darro ku soo galaan. gaar ahaan waxa uu si gaar ah u carabaabay Soomaalida isagoo mar kalena wadankeena Soomaaliya aflagaadeeyay. Trump waxa uu ku leeyahay maamulkii ugu dambeeyay kii isaga ka horeeyay maamulkii Biden ayuu ula jeedaa. waxa uu ogolaaday ayuu yiri wadankeena 21 milyan oo aan la aqoonin isla markaana baaritaan aan lagu sameeynin oo ajnabi ah meel kasta oo caalamkana ka yimid isla markaana sidoo kalena ka yimid meel xitaa aadan rabin inaad ogaato aysan macquul ahayn in wadankeena ay soo galaan. marka wuxuu yiri wadan u dul qaadan karo ma jiro qatar noocaasi oo kala ah. wuxuu tusaale ahaan u soo qaatay Minnesota. wuxuu yiri 100,000 oo Soomaali ah ayaa waxa ay kala goynayaan ama kala jajabinayaan. waxa uu yiri gobolkaasi Minnesota oo mar ahaan jiray gobol aad u wanaagsan. waxana uu sheegay in balaayiin doolarna la lunsaday. waa arintii jimcihii la soo dhaafay uu ku soo qoray bartiisa True Social. hadda isaga ayaa codkiisa ku sheegaya. waxana uu sidoo kale leeyahay gaangi Soomaali ah oo ka yimid dalka Soomaaliya, dalkaasi oo xitaa aan lahayn dawlad, wax sharciya aan lahayn, wax biyana aan lahayn. waxaan u malayaa taariikhda Soomaaliya inuu wax badan ka ogeyn madaxweyne Trump isla markaana military aan lahayn oo waxbaba aan lahayn ayaa waxa uu yiri xubinta ku jirta Congress-ka oo Ilhaan Cumar uu ula jeedo. Ilhaan Cumar ayuu mar kale weeraraya. waxa ay noogu wacdinaysaa ayuu yiri wadankeena iyo waliba dastuurkeena iyo sida wadankeena uusan u ahayn mid wanaagsan. sida darteed waxa uu yiri ma doonayno in aan arintaasi ama weerar noocaasi oo kala iyo sharciga iyo kala dambeynta aan ka qaadana ayuu yiri dad xitaa aysan ahayn in ay wadankeena joogaan. Ilhaan Cumar iyo dadka Soomaalida ayuu kula jeedaa. marka waxa uu yiri
hadda waxaa waajib ah ayuu yidhi inaan dib u qiimeyn ku samayno qof kasta oo waddanka Maraykanka sharci darro ku soo galay oo ka yimid Afghanistan oo maamulkii madaxweyne Joe Biden ay ugu ogolaadeen in Maraykanka uu soo galo. Marka waxaan qaadaynaa tillaabooyinka laga maarmaanka ah si aan u xaqiijino si aan Maraykanka uga masaafurino qof kasta oo sharci darro ah oo ka yimid waddan kasta oo caalamka ku yaala, isla markaana aan u qalmin in Maraykanka uu sii joogo waddankeenana aysan wax faa'iido ah ugu jirin. Haddii wuxuu yidhi waddankeenna aadan jeclayn annaguna kuma rabno, wuxuu yidhi Maraykanku marnaba madaxa uma raaricin doono argagixiso, isagoo sheegay inuu amray ciidamo kale oo dheeraada oo 500 oo ciidamada militariga ah in la keeno. qofkii gaadmada ku toogtay labadaasi askari oo ciidamada ilaalada qaranka ee West Virginia ka tirsanaydna ciqaabta uu adag yahay la marsiin doono xitaa haddii ay noqoto inaan xabad u adeegsano ayuu yidhi. Madaxweyne Trump oo arrimahaasi ka hadlayayna waxa uu yidhi The last administration let in 20 million unknown and unvetted foreigners from all over the world, from places that you don't want to even know about. No country can tolerate such a risk to our very survival. An example is Minnesota, where hundreds of thousands of Somalians are ripping off our country and ripping apart that once great state. Billions of dollars are lost, and gangs of Somalians come from a country that doesn't even have a government, no laws, no water, no military, no nothing. As their representatives in our country preach to us about our Constitution and how our country is no good. We're not going to put up with these kind of assaults on law and order by people who shouldn't even be in our country. We must now re-examine every single alien who has entered our country from Afghanistan under Biden, and we must take all necessary measures to ensure the removal of any alien from any country who does not belong here or add benefit to our country. If they can't love our country, we don't want them. America will never bend and never yield in the face of terror. And at the same time, we will not be deterred from the mission these service members were so nobly fulfilling. That is why tonight I can announce that I have directed the Department of War to mobilize an additional 500 troops to help protect our capital city. We will make America totally safe again, and we will bring the perpetrator of this barbaric attack to swift and certain justice if the bullets going in the opposite direction haven't already done that. arrintani marka waxay sii kordhinaysaa maadaama ninkan uu yahay nin Afghanistan ka yimid oo Muslim ah haddana ajnabi ah in qabqabashada dadka sharci darrada ah ee waddanka Maraykanka sharci darrada ku soo galay in maamulka Trump uu sii laabo isla markaana hadda waxa uu leeyahay dib ayaan ugu laabanaynaa kiisaska qof kasta oo Maraykanka sharci darro ku soo galay intii Biden uu madaxweynaha ka ahaa. Trump waxa uu doonayaa wax kasta oo Biden uu sameeyay in uu ka laabto. Hadda waa tii qaxootiga maanta aan idin sheegayay, qaxootigii 4 sano Biden waddanka madaxweynaha ka ahaa in dib u eegis lagu sameynayo, interview laga qaadayo. Shalay waxa la yaab lahayd aqalka cad sanad kasta xilligan Thanksgiving-ka shimbirahan la yiraahdo Turkiga ayaa la cafiyaa. laba shimbir oo horey Biden uu cafiyay sanadkii hore ayaa wuxuu yiri Biden waxba kale ma ogeyn, shimbirihii aniga ayaa mar kale cafinayo. Marka wax kasta oo Biden uu sameeyay Biden miyuu ku xumeynaya ma ogi, waxa uu leeyahay aniga ayaa u daba maraya. Marka